another one tiiti cadde another one tiiti cadde another one tiiti cadde waxaa gebi ahaanba hawada laga saaray ama la jabsaday ama lala wareegay janalkii walaalkeen asad xaajiyo oo aad wada garanaysaan oo ah wiil naafa ah oo ku nool dalka Malaysia. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Hero is back. kusoo dhawow tiiti cadde channel haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkan ama ay ku tahay booqashada koowaad waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto channelkayga gambalaalka yarkaa furto videoga like saarto aad iyo aad aan u mahadsan tahay intaasoo dhan ma ahan wax lacag waa bilaash waa free adi unbay kugu xiran tahay in aad channelkayga ka qayb qaadato caawinaadiisa kuna soo dhawaada sida caadadayd muuqaal cusub balse intaa muuqaalka u guda galin waxaan rabaa inaad caawisaan garab istaagtaan u hiilisaan channelkan Maarajo channel oo ay kugu soo dhaweyn doonto walaashay Muniira Cusmaan oo takhasus u leh howlaha YouTube-ka wax badan ku soo jirtay aftahanadna ah waxna ka dhaadhicin karta waxna ku sheegi karta ka qoslin karta waxa inta ku sii dheer waxaad ka faa'iideysaa karinta cuntada oo kala duwan haddii aadan aqoon waxaasi ku sii dheer goglida sariirta nadaafada guryaha dhaqida musqulaha dhammaan wax kasto oo arimaha qoyska ama bulshada ay u baahan tahay ayaa channelkan ka heli doontaa booqo oo taageer Maarajo channel 2 wadna mahadsantiin haddii aad booqatiin channelkaas sida caadada aadna kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan rabaa inaan ugu hadlo waxaa gabi ahaan laga saaray channelka asad xaajiyo hawada ama la jabsaday ama lala wareegay ugu horeyn horta waxaan halkan ka tacsiyeenayaa xaaladaasi ku dhacday asad xaajiyo waan ka xumahay boqolkiiba boqol waan ka tiiraayensanahay waana ka murugeysanahay maxaa yeelay waxaan ka mid ahay bahda youtuberka Soomaaliyeed maadaama aan ahay youtuber aad baan ugu xumahay wixii ku dhacay walaalkay waan ka xumahay waliba boqolkiiba boqol waa qof birimageeda waa qof naafa ah maanta aan ku habooneen in waxaas oo kale lagu sameeyo inta markaan kaga soo laabto bulshada ayaa rabaa wax badan inaan u sharxo marka YouTube channel ma la jabsan karaa ma fudud yahay si loola wareego su'aashaas jawaabteedu waa maya YouTube channel in si sahlan loola wareego si sahlanna loo jabsado ma fududa way adag tahay taas micnaheedu waxay tahay YouTube-ka wax la dhaho bivaylakh uu leeyahay ama ammaan sababtoo ah haddii YouTube channel qof kasta laga jabsan karo ama lagala wareegi karo wax ka bariiseen lahaa maanta ma jirteen ama ma jireen way adkaan lahayd in laga bariiseeyo haddii qof kasta YouTube u furan laga jabsan karo laakiin maxaa sahlaya in YouTube channel la jabsado sidaan wada ogsoonnahay isla bilaan gudahoodii ayaa waxaa la jabsaday Durdur Media oo aad wada garanayseen ayaa hawada laga saaray maanta channel kale weyn ayaa hawada laga saaray Durdur Media in hawada laga saaro maxaa sabab u ahaa maxaa fududeeyay Durdur Media waxaa fududeeyay oo sabab u ahaa Soomaali waxay tiraahdaa dherigii farabata wuu fuud xaraareeyaa dherigii farabata wuu fuud xaraareeyaa Durdur Media waa wada garanaysiin oo ay soo mareen shaqaale kala duwan oo halkaa ka soo shaqeeyay dad badan oo halkaa ka soo muuqday ugu dambeyn dadkaas qof ka mid ah oo la aaminay oo la soo dhaweystay ayaa sababay in Durdur Media passwordkeedii la gudbiyo kadibna la sahlo in hawada laga saaro asad xaajiyo markaan u soo laabto YouTube-kiisa sidoo kale dherigii farabata uu fur xaraariyaa sida ila tahay ama sidoo asiga afkiisa ka cadeeyay YouTube-kiisa waa loo isticmaalayay oo waxa la isticmaalayay qof walaal ah oo YouTuber ah oo arimaheena la yiraahdo oo aad wada garanaysaan aniga maliyaada arimeena YouTube-kaasi hawada ka saaray ama ka dambeeyay laakiin
waxaa meesha ka muuqata in youtube-ka uu Asad Xaajow only ku ahayn fara kale ay meesha ku jireen. tusaale ahaan Tita Cadde channel waa channelkayga. haddii maanta mobile uusan aqoonin ama laptop uusan aqoon laga furo gmailkaas, waxaa soo dhacaya message degdeg ah, email degdeg ah oo oranaya youtube-kaaga ama gmailkaaga waxaa laga furay laptop noocaas ah. ay adiga miyaa? haa ama maya. haa haddaa dhahdid oona adiga ahayn oo qolo kale ay baaswarkaaga gelisay, waxa waaye abayda allah kugu xiriiriyo, allah ku aruuriyo, waa la qaatay waxaaga. haddii aadan adigu ahayn oo aad tirahdid maya, waxaaga adiga iska leh, gacantaaday weli ammaan ku yihiin. marka youtube in la jabsado ma sahlana, ammaankeedu waa la adkeeyey, laakiin adigay dayacaadaada kugu xiran tahay. adigaa inaad qof aaminto, waxaaga, furahaaga, baaswaradaada inaad qof kale u dhiibato oo aad qof kasto dhahdo igala shaqeey oo furo ku shub alaab geli wixii galaayo, dhibaatada noocan oo kala ka imaanaysa. sababtoo ah wixii laba qofood oo isla ogaato qof saddexaadna ma mooga. qof walba oo baaswarkiisa dad kale la isticmaalayo ha feejignaado, sababtoo ah waxaan waa xoolana ilaaliyay kaa rabtaa. youtube-kan waa xoolo sida geel oo kale waaye, ama lo'da ama ariga. sababtoo ah nacfiyaad bay leeyihiin dhammaan geela iyo lo iyo ari. intaa aan soo sheegay nacfiyo bay leeyihiin. youtube-kana sidoo kale nacfi ayuu leeyahay oo lacag baad ka samaynaysaa. marka waxa aad lacag ka samaynayso waa xoolahaaga. xoolahaagana marka inaad ilaaliso adigaa lagaa rabaa. qofna inaad aaminto muhiim ma aha. in las aamino waxaa ka wanaagsan in las aaminin. in las aamino way wacan tahay oo hala kala tago yaan isku kalsoonaanin lama dhahayo, laakiin waxyaalaha qaar inay brevat ku aadaan oo shakhsiyan waxaaga adiga inaad u ilaalsato ku ahaato. hadda Asad messageka waa loo soo diray, laakiin maxaa sahlay in la jabsado? waxaa sahlay wuxuu ku ogaa baaswarkiisa inuu la isticmaalo arrimaheena. sidaa darteedna wuxuu si degdega u dhahay haa, maadaama uu arrimaheena og yahay inuu la isticmaalo, wuxuu isdhahay arrimaheena furay, ha ku adkeenin, haa dheh. marka arrimaheena maadaama uu furay arrimaheena uu furan jiray oo isku ogaayeen, hadda messageka uu soo dhacay arrimaheena ayuu u qaatay. asigana wuxuu dhahay haa waa aniga. kadibna youtube-ki sidaasaa lagu qaatay. marka hadda anagu ma dhihi karno arrimaheenaa jabsaday basaa ka dambeeyey ama qof kalaa ka dambeeyey, laakiin waxaa cad dherigii farabata inuu fud xaraareynayo. qof walba wixiisa inuu asiga heesto ilaalsado waa muhiimay ku tahay. sababtaa xoolahaaga inaad ilaalsato adiga dantaada ku jirtaa. haddii naftaada dayacdo oo xoolahaaga dayacdo waa la qaadanaa oo waxaa uu beelax u yahay cid kasta. marka sidaa darteed ayaa walaalkeena loo jabsaday, maadaama uu youtube-kiisa asi keligiis uu ku filneen, asi keligiis uu haysanin baaswarka, dad kale ay la isticmaalayeen, ayaa sahashay in maanta youtube-kiisa hawada laga saaro. marka qof kastoo baaswarkiis lahaayo feejignow ayaan ku leeyahay, anigu keyga lama haayo. sidaa darteed adiga haddii kaaga lahaayo is ilaali. qof kastoo kiis lahaayo mar walba in hawada laga saaro ayay u fududahay. videoan intaana kusoo gabagabeynaa, waana ka xumahay wixii kugu dhacay Asad Xaajow. guulaana kuu rajeynaa iyo soo laabasho wanaagsan. haddii aad soo laaban weysana mid kaloo kas ka wanaagsan ilaahay inuu kugu bedelo.
oo soomaalina ay kugu taageerto tan kulantideena dib waa tii tacdo idin